haddaba su'aalihii iyo jawaabihii uu madaxweynaha lagu weydiiyey intii doodaasi socotay ayaanu idiin soo turjinnay waana tan xidhiidhyaha doodu waxa ugu horreyn weydiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maalgashiga dekedda berbera ee shirkadda DP World ku samaysay muhiimadda ay leedahay iyo doorka dhaqaalaha lagu maalgeliyey dekeddaasi ay ka qaadatay kor u kaca dhaqaalaha waddanka waxaanu madaxweynuhu ku jawaabay. Thank you very much. Before I answer the question, I want to tell the audience I'm from Somaliland. aad baad u mahadsan tahay ka hor inta aanan su'aasha ka jawaabin waxa aan doonayaa inaan u sheego ka qaybgalayaasha inaan ka socdo dalka Somaliland oo ka mid ah dalalka mustaqbalka soo socda. Berbera Port is the most famous port in the Red Sea. dekedda berbera waa mid ka mid ah dekedaha ugu caansan badda cas waa deked guuna oo muddo dheer jirtay shirkadda DP World waxay ku maalgelisay lacag ka badan 400 milyan oo dollar maalgelintaasi waxay ka dhigtay dekedda mid wax weyn ka beddeshay oo casri ah waxay kordhisay awooddeedii dekedda haddana waxay noqotay deked muhiim ah oo adeegyo siisa badi dalalka Afrika ee aan dekedda lahayn. Most of the African countries that have no port. Our main customer macmiilka ugu weyn ee dariska ahina waa Ethiopia oo ay ku nool yihiin in ka badan 140 milyan oo qof sidaas darteed berbera waxay siin doontaa adeegga dekedeed ee ay u baahan yihiin Ethiopia wayna u adeegi doontaa. we have to finalize. hadda waxaan rajaynaynaa inaan dhammaystirno heshiisyadii badeecadaha isku gudbay Ethiopia sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah. xidhiidhyuhu mar kale waxa uu madaxweyne Cirro weydiiyey su'aal u dhigneyd goorta uu dhammaystirayo heshiiskaasi maadaama oo indhaha dunida uu aad u eegayaan waxaanu madaxweyne Cirro ku jawaabay sidan. My plan is to finalize. qorshahaygu waxa weeye inaan dhammaystiro heshiiskan ka hor inta aanu dhammaan sanadkan 2025 ee aynu ku jirno. Before the end of the year. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland intii doodu socotay waxa sidoo kale la weydiiyey qorshaha Somaliland ay ku soo jiidan karto dalka Mareykanka iyo madaxweynihiisa Donald Trump si ay uga hesho aqoonsi caalami ah iyo waxa ay tusi karto ee ay doonaynayo Mareykanku si la mid ah sida ay u soo jiidatay indhaha shirkadda DP World oo Imaaraadka Carabta laga leeyahay waxaanu madaxweyne Cirro ku jawaabay sidan. Well, regarding the current situation of the whole world, waa hagaag iyadoo la tixgelinayo xaaladaha xilligan ka taagan dunida oo dhan Somaliland waxay ku taallaa buqcad istaraatiiji ah waxayna haysataa xeeb dhererkeedu yahay 850 kiiloomitir oo ku dherarsan gacanka cadan. Somaliland berbera oo Somaliland waxay xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida hore u isticmaalay oo u adeegi jirtay marna Ruushka marna Mareykanka markaas waxaad halkaas ka fahmaysaa buqcadda muhiimka ee berbera ku taalo. Somaliland as a country has become independent and Somaliland dal ahaan waxa uu madax banaanadiisa qaatay 26 Juun 1960 laakiin nasiib darro waxa uu xorriyadiisa u lumiyay si loo helo fikirkii ahaa Soomaali weyn waxaana uu ku biiray Soomaaliya taasoo iyaduna xorriyadeeda qaatay 5 maalmood kadib Somaliland oo ahayd 1 July 1960. And again Somaliland has regained. Somaliland waxay mar kale dib u soo ceshatay xornimadeedii 18 May 1991 laakiin ilaa waqtigaas ilaa hadda ma haysato wax aqoonsi caalami ah oo ay ka heshay dunida oo dhan Somaliland laakiin waxay ula macaamilaan si ka madax bannaan Soomaaliya. Somaliland is a country, is a democratic nation. Somaliland waa dal waana qaran dimuqraadi ah waxa uu qabsaday doorashooyin dimuqraadi u dhacay sidoo kale waxa xukunka la iskugu wareejiyay nidaam dimuqraadiyadeed oo awoodii la iskugu wareejiyay in a democratic way. Peaceful transition actually. Yes. madaxweyne Cirro waxa la weydiiyey sida ay ku heli karto aqoonsi caalami ah Somaliland gaar ahaan Mareykanka iyo dalalka kale ee dunida iyadoo markaasi ka iibinaysa qorshayaasheeda mustaqbal waxaana uu ku jawaabay sidan. Regarding our democratic hagaag iyadoo la tixgelinayo hanaanka dimuqraadiyadeed ee aanu ku soo dhaqannay waxaanu rajaynaynaa inaan aqoonsi ka helo dunida
waxaannu xidhiidh fiican la leenahay Maraykanka, Ingiriiska iyo dalalka kale ee dunida. laakiin hadda waxaannu rajaynaynaa in Maraykanku uu noqdo dalka koowaad ee aqoonsi caalami ah oo buuxa siiya Somaliland. Maybe the first country to recognize Somaliland. That would jump